عشرة كود waxaan ku soo baranay sida MS Excel looga furto shaashada computer-kaaga qaybtan waxaan ku eegi doonaa qaybaha kala duwan ee MS Excel si aan u fahanno qaabka uu MS Excel u shaqeeyo qaybta koowaad waxay noqon doontaa barashada waxa la dhaho sales noqon doontaa cell basics asaaska cell muxuu yahay يعني فهمي دونا مركا سيلز طبعا وحوي وحو MS Excel كو شقيبا برنامج كان وحيابا كو شقيبا سيل يا لها مركا ميل كاستا او ان توجي هذا سيل وا جود كو wax lagu qoro way ama tirooyinka lagu qoro ama oral caadi ah noqdo godadkaas ayuu Excel ku shaqeeyaa Excel markaad fiiriso waxaad moodaa inuu u sameeyay sida shaxda lagu sameeyo MS Word oo kale يو سمسين ياهي مركا وحيابهان ودد كان يري رايدل waxa la dhahaa sales ka markaan sida u tuujiyo waxa arkaysaa qaybtiisa sare waxa ku soo qormayo xarafka ku qoran waxa weeyaan n ba ku qoran hadda tusaale ahaan laakiin isla markii aan tuujiyo had ba koraya had lambarka inta kaga aadan sidoo kale hada korayo waxay ku tusinaysaa سيل كان مجاعيسي كنت سنسا قد كان مجاعيسي قابل الله مجعابي لها إني تهي N14 حويان N4 طبعا إنو يهي كنت سنسا حقاس نوكو موجنا يا وحالا دهو نيم بوكس كان هل كان نيم بوكس على دهو كو موجنا حد بمشا تاوة مجاعيدا يكو موجنا يا حد بقد كأتاوة مجاعيسي يكو موجنا يا سيلز كان ملايين يكو كوبين مركا MS Excel برنامج كويدل سيدا أيونا متقانا كشقايا wax loogu qora hadii aad rabto cell inaad qeexdo macnaheeda kale waxa weeyaan leemankan dhaadheer oo aan baran doono waxay yihiin joog saa u jooga iyo kuwa kale meesha isaga dhacaan yaa waxa la dhahaa cell tusaale lambarkan iyo xarafkaas oo kale meesha isaga dhacaan waxay noqonaysaa cell qaybtan halkan aan ku soo gabagabeynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.